magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa si weyn looga dareemayaa qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qorshuhu yahay inuu soo gaaro Qardho maalmaha soo socda xilli uu ku sugan yahay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Dhammaan goobaha muhiimka Qardho ayaa lagu xardhay boorarka madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale kan calanka Soomaaliya. Bulshada Qardho oo caan ku ah soo dhaweyn aan loo kala harin ayaa hadda ku jira qabanqaabadii ugu dambeeyay. madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaanu leenahay ku soo dhawow magaalada Qardho. farxad iyo reereyn beenoo tahay inaan ku soo dhaweyno magaaladii ama xaruntii dhaqanka ee Soomaaliya magaalada Qardho. horey baan aanu sanadkooda hadda ayaa waxaan iri dalku waa korayaayo Farmaajo u diyaaro oo dirna waa u lahayo doonitaanka la joogtay dadweyne oo bal ogaada marka mar labaad iyo mar saddexaad madaxweynaha waa loo diyaar garoobay si fiican baa loogu diyaar garoobay. wadana reer Karkaar waxaan rajaynaynaa insha Allah bidilaahi kariim inaan u soo dhaweyno sidii lagu yaqaanay reer Karkaar si kasi fiican insha Allah bidilaahi kariim. qabanqaabadii waa lagu jiraa iyo soo dhaweyntii madaxweynaha federaalka lagu jiraa iyo dhammaan martidii inooga timi xamar iyo dhammaan gobollada kala duwan ee Soomaaliya oo ku soo wajahan Qardho. sida aragtaanba Qardho waxa weeye xaruntii dhaqanka weeye waxa inay muuqatay meel walbaaba hidiye dhaqankii loogu sharaxay meel walba calankii iyo hidiye dhaqankii waa ku sharaxan meel walbaana waa diyaar fardihii waa diyaar tiimkii hidiye dhaqanka waa diyaar waa soo dhaweynaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada xaruntii dhaqanka ku soo dhawaada. dhammaan ciidamada degmada Qardho ayaa iyagu ku hawlan sugidda ammaanka guud ee Qardho waxaana ciidanku gawaaradu ay ka diirayaan bacaha madowga ee loo yaqaan beersolka. taliyaha saldhigga degmada Qardho Abshan Maxamed Cabbaas ayaa ka warbixiyay sida ciidanku ay u shaqeynayaan xilli uu la hadlayay telefishinka Jubbaland. aad ugu mahadcelinayaa radio Jubbaland ama TV-ga Jubbaland aad baa maasantay saxafiyiintiisa noo yimi halkan ugu soo booqday waxaan u diyaar garoobaynay ilaa shalay ilaa maalmihii laga soo bilaabo daraad ilaa iyo intuu noo imaan doono madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wufuudda uu wada hogaaminayo iyo madaxweynaha mudane Cabdullaahi Maxamed Cali Gaas iyo dhammaan wufuudda isaguna hogaaminayo. runtii diyaar garowga waxaan ku jiraa haddana ciidanka ammaanka gobolka Karkaar gaar ahaan degmada Qardho ciidamada guud ee qaybta ammaanka gobolka Karkaar ana ku hadlaya afkooda. runtii waxa weeye shaqadu way socotaa sida idin muuqataba bacaha madow waa la diirayaa amniga waa la sugayaa ilaahay ma u sugnaatay dhul amni weeye dhulkani waxa u taagan ciidamada qalabka sida booliska iyo daraawiishta ciidanka kala duwan waxay u taagan yihiin hal iyo habeen inay ka shaqeeyaan amniga magaalada. munaasabadan wanaagsan madaxweynaha ugu talagalay inuu soo dhaweeyo intii xaqiiqatan waa mid aad u wanaagsan saa u jeedaan ciidanku waxay u shaqeynayaan si wanaagsan bay u shaqeynayaan ujeedaan haddii waxa weeye waxaan taaganahay meel buntaan taaganahay beersolkii gacanteedaan ku fiiqay. magaalada Qardho ayaa ka duwanaan doonta magaalooyinka kale ee Puntland xagga soo dhaweynta waxaana wafdiga madaxweyne Farmaajo marka laga tago shacab soo dhaweyn doona fardaha Qardho caanka ay ku tahay oo iyagu soo dhaweynta Farmaajo loo diyaariyay. xabaladan raadiyaha iyo telefishinka dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Qardho.